Muuqaalkan quruxda badan ee aad daawanaysaan waa Garoonka Caalamiga ee Adam Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho. Muddo badan kadib burburkii dalka, gaar ahaan caasimadda Muqdisho, Garoonka Adam wuxuu ahaa meel cidlo oo aysan jirin haba yaraatee wax dhaqdhaqaaq oo ka jira. Sidoo kale Garoonka Adam Cadde wuxuu ka mid ahaan jiray xilliyadii barisamaadka, mid ka mid ah garoomada ugu mashquulka badan qaaradda Afrika. Dowladda Turkiga ayaa si weyn u dayactirtay garoonka, waxayna hadda ku wadaa garoonka ballaarin maadaama uu garoonku hadda noqday mid mashquul badan. Saacadihii aan transitka ku ahaa Garoonka Adam Cadde waxaa isdaba maraya diyaarado fara badan oo qaarna duulaya qaarna soo degaya. Waa 27 bisha Maaj sanada 2012 waxaana saaka xilli hore aan ka soo tagay magaalada Garoonka iyo xarunta gobolka Mudug. saacad iyo daqiiqadana kadib waxaan ka soo degay Garoonka Adam Cadde. Mudadii yarayd aan ku sugnaa garoonka ee aan sugayay diyaaradii kale ee aan raaci lahaa, waxaan halkan ka dareemayay horumar weyn oo baaxad leh. Diyaaradaha caalamiga sida shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airways iyo diyaarado kale ayaa iga dhex muuqday garoonka, kuwaasi oo bilaabay duulimaadyo ay ku kala bixinayaan daafaha dunida. Jawigu waa mid degan, garoonkana waxaa fursado shaqo ka helay dad fara badan oo awalbaaba muddo ku ah fadhi ku dirayada magaalada Muqdisho. Tani waa Muqdisho oo mar kale aan ka arkay waji horumar leh. Mudadii Universal TV Muqdisho.